الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إلهي سبحانه وتعالى أدومديسا marka uu abuuray qaarna wuxuu u abuuray inay ahlu janno noqdaan qaarna ilaahay wuxuu ku qadaray nasiib daro inay ku dhacdo oo ay ahlu naar noqdaan inta ay nool yihiin labadaas shaqay ka shaqeynayaan oo sidii uu yiri nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam i'malu kullun muyassarun lima khuliqa lah shaqeeya qof walbaaba waxa loo fududeynaya wixii loo abuuray qofka khayrka loo abuuray ilaahay amalka wanaagsan ayuu u fududeynaya qofka naarta loo abuurayna sharta loo fududeynaya ibn Majah ibn Abi Asim waxay wariyeen min hadith Anas ibn Malik nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam inuu yiri inna minan nasi mafatiha lil khayri maqaliqa lisharri وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فالطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه ورسولك يري صلى الله عليه وسلم dadka waxa kamid qaar oo furayaalka khayrka albaabada khayrka ay furaan wax kasta oo khayrka ayay ka shaqeeyaan ummadda inay ku dhex faafaan waxay u taagan yihiin sharta inay hor istaagaan waa qunfulka sharta qunfula meel alla meesha ummadda shartu uga imaanaydo ayay xirayaan ay joojinayaan waxay la dagaalamayaan sharta idaylkeed maandooriyaha zinada qamrada qamaarka iyo qurunka dhamaantiis markaasuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam waxa jira dad ayagu mafaatiixda sharta shartay ummadda ku soo furaan waxay u taagan yihiin balaayadu inay faafto zinadu inay faafto maandooriyuhu inuu faafo akhlaaq darada iyo xishood daradu inay faafto baladay u taagan yihiin waxay hor istaagaan oo dhibsadaan oo ka danqadaan oo la tusi karin waa khayrka lama tuso shartay u taagan yihiin markaasuu nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam natiijada ilaahay agtiisa ay ka kala mudad doonaan wuxuu yiri faduba liman ja'ala Allahu mafatih alkhayr ala yaday waxa iskale jannadii wanaaga badneed qofka ilaahay gacmihiisa ka dhigay furayaalka khayrka inuu khayrka fidiyo shartana hor istaago ummadda xumaanta kala dagaalamo qofkaas ayaa jannada ilaahay iskale وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه واديga جهنم wuxuu u sugnaaday kuwa sharta soofura ee ummadda ku dhex faafinaya sharta iyo xumaanta kufriga dhiiga muslimka zinada iyo maandooriyaha iyo akhlaaq darada iyo xishood darada waxyaalaha la yaab kale waxa kamid dalkan Soomaaliya kuma yaalin tukaamo Talyaanigu leeyahay Soomaaliya iskale wadankan tukaamada ku yaala in maanta wadanka Soomaaliya lagu dhex arko dad ganacsato oo keenay sigaar oo muuqaalkii nacnac sigaar laga soo dhigay ee dhalinyaradu inay ku ciida loogu keenay si loogu tarbiyeeyo loogu diyaariyo la qabsiga maandooriyaha iyo sigaarka iyo qurunka waa nasiib daro ilaahu ha naga dhigin albaabka sharta xasbunallahu wa ni'mal wakiil waxaad ogaataan dadka nuucaasa ee ka ganacsanaya ummadda akhlaaqdoodu inay baaba'do diintoodu inay baaba'do qamrada keenaya sharta keenaya sigaarka keenaya qaadka keenaya qurunka faafinaya laba maada mid yihiin wax kale ma dhici karto qofka sigaar ummadan u soo qariye nacnac waa soo dhigay ee caruurtooda in lagu tarbiyeeyo u keenay laba shay midaan muhiim ahaan in uu yahay cadow la shaqeeyo hay'adaha sirriga ee u taagan ummadan siday u dumi lahaayeen akhlaaqdooda diintooda iyo sharaftooda inuu la shaqeeyo oo uu cadow yahay oo uu raali ka yahay xumaanta faafinteeda iyo inuu yahay qof hunguri qaaday oo maanka iyo maskaxdaba wax kale aan ka fakirin ee xalaal iyo xaraam wixii ku soo galaan baxoole raadis ay ka tahay labada mid uu yahay halaaga u sugnaaday ilaahay wayna wuxuu nooga waramay subhanahu wa ta'ala kuwa sharwadayaalka ee doonaya ummadda xishood darada xumaanta qurunka maandooriyaha inuu ku dhex faafo kuwa doonaya ilaahay adduunkana inuu ku ciqaabiyo aakhirana ku cadaabayo ilaahay wuxuu yiri subhana innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina aamanu lahum adabun alimun fid dunya wal aakhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna dadka jecel dadka mu'miniinta dhexdooda xumaantu inay ku dhex faafto adduunka iyo aakhirada cadaab ay leeyihiin
ma waysan ogeyn imisa musiiba ka raacday kuwii laaluush qaatayaalka ahaa ee xaaraanta iyo laaluushka gurtay kuwii dadka muslimka ka ganacsan jiray ee inta xirta dhaqaalaha ka qaadan jiray kuwii ribada guri jiray kansar imisuu raacay boqolaal kun markii lagu daweeyo dabadaha loo qaadana silax u dhintay ma waysan ogeyn kuwii xaaraanta xoolaha ka tabcay inay ciidda hoostooda maanta ku jiraan oo su'aal qabriga ay u taallo oo cuquubadii qabriga ay u taallo ayagana carruurtoodii aalkolaystayaal inta noqdeen ay isku dilayaan xaaraantay u tabceen war rabbi ka cabsado isku xishooda kuwa ummaddan sharta la doonaya adduunkana cuquubay leeyihiin aakhirana cadaabay leeyihiin waxaa dhici karta dad hunguri qaaday oo aan xalaal iyo xaaraam u aba yeelin dadkaasu inay yihiin oo kaliya un lacag raadis ay ka tahay ayagana ilaahay ciqaab u ballan qaaday nabigeenna suuban sallallahu calayhi wasallam xadiiska bukhaariga wuxuu yidhi ina rijaalan yataqawaduuna fii maalillahi biqayri xaqin falahum annaaru yowma alqiyaama dad ayaa iska dabaalanaya maalka hanti hel un kaliyahay u joogtaa xalaal iyo xaaraan ma kala fiiriyo naar ay iska leeyihiin maalinta qiyaamaha ilaahay ka cabsada dalabkiina wanaajiya wixii layniin qoray waa helaydaan idinkoon dhiman aad dhammaysaydaan wixii layniin qoray xalaal wax ku raadsada waana inaad ogaataa markaad ummaddan u keento nacnac sigaar aad uga soo dhigtay dhammaan dhallinyarada ku fidnowda ee sidaas maandooriyaha ku barata dembigooda adiga in lagu qorayo siduu nabigeenna suuban sallallahu calayhi wasallam xadiiska muslimka ku yidhi man sanna sunnatan sayi'atan falahu wisruha wa wisru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama min qayri an yanqusa min awsaarihim shay-a qof alla qofka ummaddan xumaan u jideeye oo xumaanta tusa oo ay uga daydaan asagu keeniduu keenay iyo bilaabidii iyo ka shaqayntii dembiguu ku leeyahay in alla intii uga dayatay dembigoodana waa leeyahay ayagana dembi uga yaraama albaabada sharta ha furinina maandooriyaha ha keeninina maandooriyuhu waa ummulkhabaa'is marka maandooriya yimaado ummadda wax u dhowrsan male qofka waxuu banu aadanku sharta uga joogaa ku dhowrsadaa waa caqliga marka caqliga la baabi'iyo dhiiggaa dadka u fudaanaya dadkaa la laynaya zinadaa faafayda xishoodarrada faafayda ilaah iyo rasuulaa la caayaya kufri iyo gaalnima lagu dhacaya xumaanu ma dhimana maandooriya markuu yimaado maandooriyaha nuucyadiisa kala duwan oo dhan waa ummulkhabaa'is qofka la dagaalamaya oo u taagan waa miftaaxa khayrka nabigeenna suubanna sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofka sharta xirayo hor taagan khayrkana faafiraya jannadii qofkaasay u sugnaatay jannadii qofkaasay u sugnaatay kuwa keenaya faafinaya waa inay ogaadaan cuquubo adduuniya cadaab aakhiro ilaahay inuu u ballan qaaday ilaahay ka cabsada ha la dagaalamin ummadda akhlaaqdooda ha ka ganacsanina ummadda sharaftooda iyo akhlaaqdooda diintooda rabbi ka cabsada mideeda kale aaw ummadda soomaaliyeed waxaa la arkay caruur aan cid ka mas-uula la arag oo la iska sii daysan oo wax kastoo la keena gadanaya inay joogaan oo laqaala laga samayn karo markaasaa looga soo dhigay nacna sigaar looga soo dhigay ee haddii la og yahay caruurta qof walba iyo qoys walba caruurtiisa inuu ilaashanayo mas-uul uu ka yahay waxa weeyaan baktiga badeecahaan looma keensadeen ee qof walbaaba wuxuu arkay caruur daysan oo cid ka mas-uula la arag war caruurtiina ilaashada war caruurtiina la socda war caruurtiina qurunka iyo aalkolada yaan la barin war adduun iyo aakhira seeg baa idinku dhacaya markay caruurtu idinka fasahaado idinkay idinkula soo laabanayaan sharta naftiinay khatar ku yihiin akhlaaqdiinay khatar ku yihiin wax idin dhowrsan lama arko marka caruurta idinka fasahaado ee qoys walba iyo qof walba uu caruurtaada ilaasho oo yaan laga gadin nacnac sigaar laga soo dhigay ilaaha weyn asmaadii sifaadiisa waxaan uga baryayaa in alla inta khayrka u taagan ilaahay ha saacido ilaahay ha gacan qabto in alla inta sharta u taagan ilaaha weyn asmaadii sifaadiisa waxaan uga baryayaa allah hanuuniyo haddaan hanuun alla ugu talagelin allah naga kaafiyo shartooda كلمتنا انت سيكون والله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد